kulan wacan oo wanaagsan dhammaan asxaabtana daawanaysa ay ku soo dhawaada barnaamij ku saabsan xaaladda waxbarashada degmada Welwel ee gobolka taasoo idin soo jeedin doona anigoo Cabdi Maxamed Cabdi Cirra daawadayaasha qiimaha waxbarashada Marasay Meerwacan kadib markii dugsiga sare xirsi Neverlow Secondary School oo isxoray muddo ku dhowsan taas duruuf awgeed ayaa ka liftay hase yeeshee maamulaha guud ee waxbarashada degmada Welwel dugsiga sare xirsi Neverlow Secondary School Master Cabdiqani Khaawi ayaa ka warbixiyay xaaladda dhabta ah ee nolosha waxbarashada degmada Welwel wuxuuna gudoomiyahaasi tilmaamay in xaaladda waxbarashada degmadu ay tahay mid wacan marka laga reebo muddo hal sano ku dhow oo isxoray iskuulkaas wuxuuna tilmaamay duruufta kaliya iskuulkaas isku xidhay in ay tahay dhanka dhaqaalaha waxaana uu tilmaamay iskuulkaasi ama gabi ahaanba dugsiyada ku yaala degmadaasi Welwel ee gobolka Cayn in aysan wax maamul ah ama dawlad iyo hay'adona aysan ku cuneen ay noloshoodu iyo waliba habsani socodka waxbarashada hadii ay tahay dhanka macallimiinta dayactirka dugsiyada inay halkaasi hawshaas weyn ay hayaan dad qurba joog ah oo ku dhaqan wadanka dibadiisa waxa uu tilmaamay diyaasbarada ka soo jeeda deegaanadaasi in ay yihiin kuwa u gacan fudud markaasna dhanka waxbarashada si wacan oo la wada wuxuu tilmaamay dhowr jeer uu isxulay dugsigaasi inuu ay fureen dad diyaasbara haddana wuxuu ugu baaqay dadka qurba joogta in halkaasi laga sii wado oo aan la joojin horumarka dhanka waxbarashada ee degmada sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay gudoomiyahaasi in xirsi Neverlow Secondary School oo ahaa mid ay iska kaalmaysteen dadka diyaasbarada ee ku dhaqan wadanka dibadiisa culimo awdiinka waxgaradka oqaasha dhammaan shacabka ku nool deegaanku sidii dugsigaasi looga dhisi lahaa degmada waxa uu tilmaamay gudoomiyaha in xaaladda degmadu ay marayso meel wacan dhanka waxbarashada oo tilmaamay Master Cabdiqani in xaaladdu ay hadeer meel haboon marayso halkaas hadii aan laga sii wadina waxaana uu la hadlayaa marka uu saaneeyahay dadka diyaasbarada iyo dadka ku dhaqan deegaanka waxaana uu tilmaamay maamul iyo dawladtoona saan horay idin ku soo sheegnay in aysan ku xidhneen way tahay dadka diyaasbarada ah waxaana uu aad ugu mahadceliyay dadkaasi diyaasbarada ee wadanka dibadiisa oo tilmaamay inay habla yihiin hase yeeshee hablaha waxa uu tilmaamay in ay dhabar adayg u sameeyaan inta dalku ka baxayo xaaladda cakiran uu imika ku jiro iyadoo guud ahaanba gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee maamul goboleedka Khaatimo State ay imika marayso xaaladoodu meel adag kadib markii ay soo foosaareen dagaalo culus ay kula jiraan maamulka Soomaaliland taas ayuu tilmaamay in ay macallimiinta iyo waliba waxgaradkuba aysan marna u hakin dagaalada ka socda deegaamada waxaana uu tilmaamay in guud ahaanba deegaamada maamulka iyo waliba xaaladda waxbarashada deegaamada maamulka Khaatimo ay meel wacan imika marayso waxaana uu tilmaamay gaar ahaan waxbarashada degmada Welwel inay meel haboon imikadaasi marayso gudoomiyaha wuxuu gaashaanka ku dhuftay dadka diyaasbarada ah in ay fureen iskuulkan haddana uu hal galaas ka furan yahay waxa uu tilmaamay iskuulku inuu hadda loo hayo macallimiin hase yeeshee macallimiintaas uu tilmaamay in qaarkood laga keenay wadamada jaarka hase yeeshee wuxuu tilmaamay in halkaasi laga sii wado horumarka degmada maamulaha oo arintaasi ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam marka hore waxaan salaamayaa ilaahay baa mahad leh marka labaadna waxaan mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo na soo booqday booqasho noogu yimi aad iyo aad baan u salaamayaa ma xogaa haddaad wax iga weydiiso adigoo maadsan waxbarashada deegaankan aan ku noolahay ama degmada Welwel xogta waxbarashada degmada Welwel ee gobolka Cayn oo kooban waxay noqonaysaa kulli waqtigan xaadirka ah way furan yihiin dugsiyadu dhammaan way furan yihiin waxbarashadu way shaqeynaysaa waqtigan way soconaysaa aad iyo aad bayna u wanaagsan tahay si kooban haddaan kugu sheegaa dugsiyo hoose dhexe oo 6 ah ayaa ku yaala degmada iyo hal dugsi sare waxaa kaloo ku yaala hal dugsi oo waxbarasho dadban ah waxaa kaloo ku yaala hal macad oo shareecada islaamka lagu barto ardada dhigata macadkaas iyo dugsiyada degmada ilaa sare ilaa hoose ilaa dhexe
واسديد بقول سجاش يشن أرضي أيانو مركانو أيان نو ديوان قشن المعلمين فينا وأيمن وردي صوت runtii dugsiyadan hoose dhexe badankoodu tuulooyinka ku yaalaan sida banyaal balahara dhalaanoe dad wax qaata iyo dad wax qaadaba macallimiintana way leeyihiin kulley dadka wax yar bay ka qaadaan wax weyn oo hadda risaal la sheego oo mushaharana ma qaataan dadkaas intooda badan waxay iskaga dhigaan horta voluntary ahaan iyo wax u dhigaan oo waxbarashada waxay ku wadaan ilaahay dartii iyo deegaanka laftigooda oo deegaanka u dhashay ayay ku wadaan marka wax hadda aan sheego waxa jira oo hadda dhaqaalo aan ku tilmaami karo dugsiga sare oo waqtiyo badan xidmay hadda la furay sanadkan hal class ah waxa furay oo furitaankiisa iska lahaa kuna maatan ilaahay baa mahadle qurba joogta hablaha qurba joogta ee Mareykanka ee deegaanka u dhashay marka macadka iyo dugsiga sare ayaga ayaa hadeerto fangareeya oo hagaaga dhaqaalaha ay ku wada ku socdaan iyaga ayaa fangareeya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qolyahaas shaariyadaas naga joogta waliba hablaha ah ee jooga North America aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa markastana waan u mahadcelinaa dhammaan deegaankoodanna waa dad yani ay intaa u duceeyeen wallaahi waa jirtay mar ay dadku waxbarashada fahamsaneen sida labadii waqtigii markaan ku dhaxlaba labadii ku wixii koreeyay dadku iska burburska jira burburku soo kulay farbadan soo maray wax maamulaho dawladda oo hadeerto ma garanaysaa dadkan si caam ah ma garanaysaa u saamaysa oo waxbarashada ama taageero ah waxbarashada dhaqaajisayna ma jirin dadkan iyaga marka ka dambeysay intaasi kadib degmada Woodward ayaa waxay tahay degmo weyn markaasina ku hareeraysan deegaamo waaweyn oo tuulooyin iyo deegaamaba iskugu jira si kastaba xaaladda ahaatee gudoomiyaha ayaa mar walba ku celcelinayay hadalka sidaad ka dheehanaysan daawashada quruxda badan ee barnaamijka xog waranka waxbarashada degmada Woodward dadka diaasbarada ah ee qurba joogta oo uu gaashaanka ku dhuftay inay hablo u badan yihiin in ay markaasi halkaasi ka sii wada waxaana uu gudoomiyuhu tilmaamay in degmadu ay hadda marayso xaaladeedu meel wacan haddii aan halkaa laga sii wadin iminkana ay noqon doonto mid dib isku xidh waxa uu tilmaamay inay ceeb tahay mar saddexaad inuu isxidho dugsigaasi waxaana uu tilmaamay markii ugu badnaa waxa uu xidhnaa muddo ku dhowsan si kastaba xaaladdu ahaatee degmada Woodward ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dhanka waxbarashada waxaa ku soo kordhayay dugsiyo kala duwan iyadoo bareefadada iyo waliba goobaha kala duwan ee waxbarashada haddii ay tahay dadka waaweyn iyo kale ee gaarkaaba in ay si ballaaran ugu soo kordhaysay si kastaba xaaladdu ahaatee dadka diaasbarada waxa uu gudoomiyuhu ugu baaqay horumarku inuu yahay mid ay dalkooda gashanayaan markaana la ilaawi doonin waxa uu tilmaamay in ay buugga meelka ka qoran yihiin dadkaasi gaar ahaan dadka wax bixiyay wuxuuna tilmaamay dadka qurba joogta deegaankan u dhashay ee iska dhaga tiraya inay noqon doonaan kuwa buuga iyaguna meel ka gala intaas waxaa ku eeg barnaamijkii xog waranka waxbarashada degmada Woodward oo soo diyaariyay aniga Cabdi Maxamed Cabdiraah illa iyo daraati urkaaga hooyo illa iyo daraati urkaaga hooyo rabbi igu umay unugiyada jirkaaga in laga siiyay حبيو علاشيو حب بيو مكانكيو على حبيو علاشيو حب بيو مكانكيو وفهد حدودنا قلبي لو لقيها لقي انت تريد تشوفتا نور الآية وعن أخيرا فردوسها أنبياء أكتودنا إبن كوبريا انت تريد تشوفتا نور الآية وعن أخيرا فردوسها
toodana dibban ku baryaaya naftu waa ammaane cajashaada hooyo naftu waa ammaane cajashaada hooyo haddii aad cilaato oo ilka lagu dhigo kuma cuna aboore naftu waa ammaane cajashaada hooyo naftu waa ammaane cajashaada hooyo haddii aad cilaato oo ilka lagu dhigo kuma cuna aboore ayada quraankiyo aducan ku aqrinaya ayada